normal qof kasto anaga naga mid sometimes inuu dareemo anxiety iyo wareer iyo in uu dareemo waxa uu qabanayo in ay ka fara badan yihiin ama uusan ku filan waa normal waaye haddaba sideed u sameyn kartaa inaad normal garayso caadi uga dhigto saddexdan waxyaalood waa saddex waxyaalood ku sahlaysa in aad ogaato in aad diyaar u tahay number 1 you prepare waxyaabaha ugu horeeya oo qofka aad u baahan tahay inaad samayso nolosha wax kastoo qabanayso oo prepare garay hadaad speech soo jeedinayso hadaad rabto inaad exercise garayso hadii aad rabto inaad thinking garayso oo aad meel fadhiisato neefso u ogolow neefayaarkaaga iyo maskaxdaada oo inteeda ugu badan ku shaqaysa hawo inaad hawo siiso ha u neefsanin neeftaada waxaad gaarsiisaa meesha la yiraahdo xudunta ama laf dhabarta meesha ugu dambaysa waana si loo practice gareeya jira waxa ugu fiican qofku uu ku prepare garoosi karo waa inuu neef ama exercise ama banaanka ku lugeeyo kale waa number 1 number 2 iska ilaali ereyada negative ka remember matihid wixii dadku ay ku dhaheen waxa tahay oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka dhigay qof unique ah oo fiican inta ugu badan adduunka maanta aan ku noolahay oo qofka baabi'iyo waa comparison ka waa ayada laftigeeda negative ka inaad isku compare garayso ama isla sinto dad yoo kale waxa laga yaabaa waxa aad sameynayso inay kugu dhibadan yihiin waxa laga yaabaa waxa aad sameynayso inaanan waaridka kugu dhiirigelin midda ugu daran oo ugu weyn oo ugu badan midda ugu dambaysa marka laga reebo waa qofka inuu iska ilaaliyo negative ka sida comparison ka kale sida erayada xun oo naftiisa dhahayo kale sida inuu hoos isku dhigo kale sida in waxyaabaha lagu yiri oo kale uu malay inay runtahay number 3 inaad isku xirto oo aad ku xirantahay Allah subhanahu wa ta'ala oo aad isticmaasho xiritaanka ama xariga ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka ilaalinaya waxyaabaha u baahan inaysan naftu ku walwal iyo walaac gelinin oo aad mar walba adkaarta iyo waxyaabaha la midka akhristo